soo dhawaada daawadayaal fiid wanaagsan qodobada xiisaha leh caawa dalkan ku daawan doontaan haddii ay baraale laga helo waxaa ka mid noqonaya markab dagaal oo laga leeyahay dalka Israa'iil ayaa lagu arkaya xeebo ka tirsan Somaliland haddaba markaasi dagaalkan muxuu yahay maxayse tahay sababta uu halkaasi u soo gaaray iyo waliba sidoo kale xogii ugu dambeeyay markabkaas ku aadan ayaa rabaa saaxiib yaal inaan halkan idin kula wadaago sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh dalkan ku daawan doontaan haddii ay baraale laga helo waxaana markaa ka mid noqonaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hub iyo waliba sidoo kale saanad military u ballan qaaday ugaaska guud ee beesha ciise ugaas Mustafa Ibrahim kadib markii ay halkaasi kulan albaabada u xiran yihiin ay ku wada qaateen madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha markaasi dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele kan Itoobiya iyo ugaaska beesha ciise haddaba markaasi wararka ugu dambeeyay iyo xogaha aan helayno ayaan rabaa saaxiib yaal inaan halkan idin kula wadaago sidoo kale qodobada xiisaha kale aad halkan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaal ee laga leeyahay dawladda Turkiga ayaa lagu arkayaa caawa hawada Somaliland kadib markii dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ciidamada maamulka Somaliland ay wadeen iyagoona qayb ka noqonaya dagaalka lagula jiro dagaalka isu soo horjeeda beesha ciise iyo Samaroon Somaliland oo qayb ka soo noqotay ayaana darteed diyaaradaha dagaal ee dawladda Turkiga halkaasi ay u dalheebaawayaan waxyaabihii ugu dambeeyay halkaasi ka soo baxaya ayaan rabaa inaan halkan idin kula wadaagiyo soo dhawaada aniga waxaan ahay Abdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanalkayga Macaash Media haddii aad markuu ugu horreysay fadlan kanalka rukumo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna la garay sin share garay oo saaxiibada la wadaag maasani daawade hagaag aynu ku bilowno markab dagaal oo laga leeyahay dalka Israa'iil ayaa lagu arkayaa xeebo ka mid ah maamulka Somaliland ayaa dhowrkii bilood u dambeeyay waxa ay markaasi ku lunsan yihiin aqoonsigii beeneedka ahaa ee maamulka Somaliland ay u magacaabo markaasi ay u doorteen maamulka Israa'iil balse tani iyo markii ay Israa'iil ay ku dhawaaqday in ay Somaliland ay yihiin dalka madax bannaan Soomaaliya Somaliland wuxuu isku mooday inay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya balse laakiin Soomaali baa leh oo Soomaali meel uma kala socoto maamulka Somaliland ayaana markan wada soo dhaweyn iyo waliba sidoo kale in ay diyaaradaha dagaalka ah iyo maraakiibta dagaalka ay leeyihiin Israa'iil inay dalkooda ay ku soo dhaweeyeen horey waxa markaasi mas'uuliyiin ka socda dalka Israa'iil u soo gaareen iyadoona dawladda Soomaaliya si weyn uga dhidhisay iyo dalalka dariska aynu nahay si weyn uga maaragtay si adag ay uga hadleen arintaasi balse xaaladan ayaana noqonaysa mid cakiran iyadoona dhowrkii saacadood ee u dambeeyay hadalheen badan uu dhaliyay markabkan dagaal ee uu qayb ka soo qaatay dagaalkii lagula jiray Iran iyo waliba sidoo kale Israa'iil u dhaxeeyay balse xaaladda ayaa markaa u muuqata mid cabsi badan ay soo wajahayaan maadaama Iran waa maaragtay dalka Iran ay hore u ballan qaadeen cid kasto Israa'iil heshiis ama kiila ah ay iyagu dhulka markaasi dhigi doonaan dawlado badan oo ay markaasi ku yaala marinka Gaza waa markaa aan raadi marinka Hormuz iyo waliba sidoo kale bariga dhexeba waxa ay maaragtay la daaladhacayeen dhibaatooyinkii iyo duqeymaha xooggan ay u geysatay Iran iyadoona xitaa wadamo qaar ay hadda soo kaban laayihiin malaayiin lacagana ay markaasi qasaareen haddii aan fiirino warar kala duwan ee ka soo baxaya xaaladda gobolka ayaana maanta si weyn looga hadal haya iyadoona markaasi dhaqdhaqaaqyo military iyo waliba sidoo kale dhaqdhaqaaqyo military xiisado siyaasadeed laga dareemayo qaybo ka mid ah geeska Afrika markab dagaal oo la sheegay inuu horey uga markaasi qayb qaatay howlgallada ay wadaan dawladda Israa'iil ayaana markaasi lagu soo waramaya inuu soo gaaray xeebta maamulka Somaliland arintaas ayaana dhalisay hadalheen iyo waliba sidoo kale walaac hor leh oo ku saabsan waa markaasi xiriirada military iyo amni ee gobolka ila kala duwan ayaana markaas sheegayaan in markabkaasi uu waday qalab iyo waliba sidoo kale taageero dhinaca farsamada ah inkastoo aanan si rasmi loo xaqiijin ujeedka safarkiisa iyo waliba sidoo kale halka sababta ka dambeyso imaatinkiisa balse maamulka Somaliland oo markan daba dhilif u noqday Israa'iil ayaa maalmihii dambe waxa la sheegay in ay isdhaafsanayeen in ay markaasi Israa'iil ay rabaan saldhig weyn oo military inay ku sameystaan balse xaaladan ayaa u muuqata mid aan suurtagal noqon doonin haddii ay sidan wax ku sii socdaalaan maadaama maamulka Somaliland ay doonayaan
Soomaaliyiinteeda kale ay ka soo jeestaan Soomaaliyana ay diyaar u tahay in ay Soomaali aysan kala qumin oo ay noqdaan hal mid wixii wararkaasi ka soo kordho markaabkaasi dagaalna muuqaaladeen dambe ay uga bogan doontaan aan fiirino marka qodobkeena kale ee xiga madaxweynaha dalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Djibouti kana qayb galiyay caleemasaarkii madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo 22 sano u dambeeyay isaga maamulayay dalka Djibouti iyadoona dadka shacbiga ay aad uga qanacsan yihiin una rayaaqeen wax qabadkiisa tan iyo markii xilka madaxtinimada Ismaaciil Cumar Geelle uu fuulay balse dhawaan ayay ahayd markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka duulay gudaha caasimadda Muqdisho isagoo na gaaray dalka Djibouti caleemasaarkaas ayaana ay waxay ku wada kulmeen ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed waliba madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cabdi Cagjar iyo sidoo kale ugaaska guud ee beesha Ciise ee maamulka Guban State iyo ayaa markaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud halkaasi ku wada kulmay kulan markaasi albaabada u xiran yahay ayay wada qaateen madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo waliba sidoo kale waxa qayb ka ahaa ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa Cabdi Ibrahim madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cabdi Cagjar oo ay noogeen saameynta uu ku lahaa dagaalka beesha Ciise ee Samroon isagoona taageero buuxda uu siiyay geesiyaasha madaniga ee beesha Ciise balse markan taageerada waxa ku soo biiraya hogaamiyaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud isagoona ballanqaad weyn uu u sameeyay waliba sidoo kale waqtiga rasmiga uu soo kaalmahaasi military heli doonaan uu cadeeyay arintan ayuuna markaasi ugaasku ku tilmaamay war farxad leh oo uga yimaaday dhanka dowladda maadaama hore u taageeray madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taas oo ka dhigayso mid si weyn ay markan u soo jiiteen qulubta ummadda Soomaaliyeed balse madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markan isna door bidaya in uu garab weyn uu ka qaato xaaladda uu markaasi beesha Samroon ay maaragtay kula jirto dagaalka beesha Ciise maadaama ciidamada maamulka Somaliland dagaalkan iyagu ku soo biireen taasna ay ciidamada beesha Ciisena iyaguna markan gurmad iyo gaashaan bay ka helayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya haddii aan fiirino dhanka kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana markaa lagu soo waramayaa inuu ballan qaaday dhinaca markaasi hubka ah iyo saanad military ee uu sameeyay ugaaska beesha Ciise xilli saacad waa markaasi xilli xiisada colaadeed iyo waliba sidoo kale abaabul hubaysan laga dareemayo deegaano dhowr wararka ayaana sheegaya in dowladda federaalku ay doonayaan in ay xoojiso saameynta iyo waliba sidoo kale xiriirka ay la leedahay qaar ka mid ah beesha waa maaragtay beelaha ku sugan waqooyi iyo maaragtay galbeedka dalka dowladda Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay in ay garab iyo gaashaan u noqoto cid kasta oo la dulminaya maamulka Somaliland wuxuu cadeystay caburinta iyo waliba sidoo kale in maamulada qaar uu xigsado iyadoona dana gaar ah laga leeyahay balse xaaladan ayaa u muuqata mid aysan soo ilaan karin haddii ay sidan wax ku sii socdaalaan dhowrka maalmood ama dhowrkii markaasi maalmoodba ay halkaasi ka taagneed balse laakiin dowladdu waxay cadeysay in ay diyaar u tahay in ay garab iyo gaashaan siinayso ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa iyadoona markaasi la filayo in halkaasi dagaalka uu sii xoogeysanayo iyadoona ay noqon doonto in qofkii laga adkaado ama ciddii adkaata ay reerka u hari doonto qodobkeena ugu dambeeyana saaxiib yaal haddii aan fiiriyana diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkiga ayaa lagu arkayaa hawada sare ee Somaliland dhowrkii maalmood ee u dambeeyay ayay howlgala ciidamada maamulka Somaliland waxa ay ku baxsanayeen geesiyaasha madaniga ee Ciise iyagoona halkaasi qayb ka qaadanaya dagaalkan iyo horunta colaadaha ka taagan maamulka Awdal iyo Selil iyo meelo kamid ah iyadoona markaa Somaliland ay marka hore ay iska dhigtay dad ama maamul u socdo in ay kala dhaxgelayaan ama nabad ay u wadaan balse laakiin waxay u muuqataa hadda xaaladdu mid ay u janjeerayaan dhanka Samroon balse diyaaradahan dowladda Turkiga ayaa lagu arkaya ilaa hadda sababta rasmiga lama cadeen balse laakiin hawada iyo dadka deegaanka waxay cadeeyeen in hawada sare ee Somaliland lagu arkayo caawa diyaaradaha dagaal ee dowladda Turkiga sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkiga ayaa caawa lagu arkaya hawada sare ee Somaliland sida ay sheegayaan dad deegaanka iyo ilo markaasi amaana waxaana markaasi la tuhunsan yahay in duulimaadyadan ay la xiriiraan howlgalos waa maaragtay sirdoon waa markaasi iyo kormeer amni ama markaasi iskaashi military
oo gobolka waa markaasi ka socdo ilaa hadda ma jirto war rasmi oo kasoo baxay Ankara ama markaasi maamulka Somaliland ee caasimadda Hargeysa oo ay xaqiijinayaan sababta rasmiga ah ee loogu arkayo diyaaradahan dagaal ay uuna muuqdaan hawada sare ee Somaliland xiisada u dhaxayso beelaha deegaanka iyo waliba sidoo kale dhaqdhaqaaqyada military ee isu soo taraya ayaa sare u qaadaya walaac shacab iyadoo markaasi dadka falanqeeya siyaasadda ama arrimaha siyaasaddu ay ka digeen in xaaladan aan lagu sii meeldayn oo ay noqoto mid markaasi la dhaxgalo maamulka Somaliland ayaa dhowrkii maalmood waxa ay isu taageen gooni goosad iyagoona sheegeen in dalka madax bannaan Soomaaliya yihiin guud ahaan halkaas ayaan jeclahay daawada inaan kusoo gabagabeeyo muuqaalkan haddii aad halkan la soo gaartay daawada waxa taa qof kale wanaagsan waxaan sin hadli kaaga codsanay inaad kanalkan soo subscribe garisid muuqaalkan la galay siin share garay kamid noqo 20 qof ee nooga arsantaa 5,000 oo subscribe keenan gaarno waa ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan